مسؤولين تورور سياسات كاكا هيا كوا بريستي دقموين كقبل كقبيلي سيوغو وعي قليان بلشدة قبل كقبيلي قاضى شدا كاركا عد بحنت الدورشوين كا ومالين تبرية قيقة سومالي لاس الرسمي يوغو بلابي دونا إسلامر كان سعون دونا مدبلا مسؤولين تنايا اسكو مريد دقموين كاربسيو قبيلي يتوقوا چالي إسلامر كان تاقير ياشا أورور سياسات كا الشعب وينها قبل كقبيلة كبورية إني كنت دالان قادة شدا كاركا عد بحنت الدورشوين كالصومالي لان إسلامر كان الشيغين إن قبل يدق مدقم الله ترتبه إسلامر كان قف كستا وان هراء قادان يقف كستو سنة كقان قاري أي فرصة داسي قالقا كفايديستان يقو هالكاسي كلاهات ليبل شدا قبل كقبيلة يقودها الصومالي لان وحكم هذا الذي ما أنت وأنا من سكون يمد نبغى كلنا بهويتي وسياسات كا وأنا كان ما أنت وفرنا إنهم كغير هذا النوع ضد كذا الكوع يجرينه سلا أبغى هذا هاي كارك أنت وانجلينتا دور شوي كسومالان واحد شوين تريد بيو شيء لها إنه كارك مهم هاي إنه كارك كتر شويه مسير كل سياسات إنه كارك مهم هاي هو هاي قلب هستوريا وشيء جاي إنه واضح كارك تو سلامة كان كاركيس هذا التوالى وعد الدنيا وقعده وحنا ما توصلنا وحويا يقدر كوعي يقولنا إن كارك قاتان كارك ما ها إن الدبل وعضين سكرية لكن هو كتر جمية وادن ملاذ واحد كله كتر جمية ديجان كتكونوش هاي قبل كدجنت هاي دجمة دجنت هاي وحكروا قال يا سمعة قبل كأمد دجمة qof kasta oo hore uga halaabay ama aan qaadanin muddadii hore ama xaalad caafimaad ama dalka ka maqnaa ama aan qan gaarin in uu si toos ah u qaato kaarka codbixinta muddada 15 cisho ee uu socdo in qof walba uu halkii uu joogo iyo hawsha uu joogo uu faraha dhigo oo uu ka qaato muddada uu socdo aynu ilaalino waqtiga aynu boqolkiiba boqol waqtiga ilaalino wala tartamaya degmooyinka waa tartamayaan aynu degmooyinka faceena ee ka gobol ahaan aynu la tartano ayaa muhiima waxaan ku bogaabinayaa mar labaad iyo mar saddexaad in kaarka la qaato oo loo diyaar garoobo maalinta berri toola halkan waxaan ku fadhinaa maanta xubno ka tirsan urur siyaasadeedka ka oo isugu jira golihii dhexe iyo gudoomiyihii garabka dhalinyarada gobolka Maroodijeex iyo xubno kale oo qurba jooga rag iyo dumarba waanu joognaa waa intii gobolka Gabiley mas'uuliyiintiisa qaar kale oo naga maqan yihiin gaar ahaan degmada Gabiley waxaan doonaa maanta inaan isku soo marno Gabiley iyo Wajaale iyo Arabsiyo in go'aan joognaa Arabsiyo ka hadlaynaa waxaan la hadlaynaa dadweynaha Somaliland iyo dadweynaha gobolka Gabiley leenahay ku dhiirigelinayna in qaataan kaarkooda oo ah xaq dastuuri ah oo ay leeyihiin qof kasta oo kaarkiisa ka lumay qof kasta oo aan hore u qaadanin qof kasta oo qaan gaaray waxaan ku dhiirigelinaynaa inuu xaqiisa dastuuriga ah guto oo qaato kaarkiisa markaasaas waa hubkiisii waa hubka lagu dagaalamo nin bila qori ma dagaalamo maanta qoriga lagu dagaalamayo waa cod waxa weeye waliba kaar marka qof walba waxaan ku dhiirigelinaynaa xaqaaga gudo kaarkaaga qaado sidaas xisbi hadaad soo saarayso iyo hadaad urur soo saarayso aad ugu helin kartaa marka waxaan isku ognahay in kaarka qaadano inaga oo gobolkii Gabiley oo codka lagu yaqaanay ah jamaahiirtii waxaan ognahay iskuulada oo dhan standard 7 iyo 8 form 1 ila form 3 inay qaan gaadheen maanta aanu diyaar garoobayno diiwaangelinta aniga oo kamid ah hooyooyinka degmada Arabsiyo iyo gobolka Gabileyba waxaan leeyahay muwaadin kaarka qaado adiga oo cid doonto u heelin doona kaarka qaadan leeyahay muwaadiniinta ardayda iyo intii uu ka halaabayba waxaan oran karaa waalidiintu way haystaan intii badneed Cabdilaahi iyo Mursal baa soo hadlay maanta wuxuu baanu leenahay muwaadin kaarka qaado anaguna waanu guubaabinaynaa waanu ka hawlgalaynaa 5 cisho ama 7 cisho uu socon doono inaanu habeen iyo maalinba u soo jeedno sidii awlaadaydu ay kaarka u qaadan lahayd intii uu ka halaabayna wax u fahansiin lahayd maanta waxaanu leenahay muwaadin kaarka qaado ujeedada aan u nimay waxay tahay wacyigelin in la qaato kaarka oo maxay ahayd qof waliba uu xaqiisa dhaxsado dadku waxay wax ku noqdaan ama ku helaan xuquuqda ay leeyahay degmo iyo gobol iyo caasimad qof walba wixii uu la yimaado
ee uu coda ee uu helo ayaa loogu xaq qaybiyaa marka waxaan ku bogaadinayaa oo kula dardaarmayaa maxay tahay Soomaaliland oo dhan qaasaan maxay tahay Arabsiyo inay qaataan kaarka ilaa fartaas ku dooranayaan qofkii aanay doonayn ay kaga caarsanayaan kay rabeen ay ku soo saarayaan kaasaana dadka kala reebaya oo muujinaya wuxuu muujinayaa inta ku nool maxay heetay wadanka inta degmo ku nool inta maxay heetay gobol ku nool ayuu muujinayaa caafimaad haday tahay iyo maxay heetay waxbarasho haday tahay iyo wax kasta oo leedin qabanayo qashin leedin ka qaadayo dawladda hoose dhaqaalaha waxaas leedin ku qaybinaya inta aan la egtihiin ee ka koobantiin marka waxaan oran lahaa inay qaataan kaarkaas waa muhiim because waad ku dooranaysaa qofka doonaysa baad ku dooranaysaa marka aad iyo aad baan saa ugu boorinaya ilaahay baana mahadle isugu keenay ilaahay waxaan ka baryaynaa si qayb qabtay ilaahay inuu nabadgelyadeena inoogu sumo inoogu dhameeyo aad iyo aadna waan u salaamayaa maxay tahay Arabsiyo sida wanaagsan loo soo dhameeyo cishaba waxbaa jooga waxaan aan wadno wax khayr la Allah ka dhigo anigoo ku hadlaya afka bulshada kana mida oday dhaqameedyada wajaale waxaan ku talinayaa in ku buurinayaa dhammaan ka qaybgalayaasha sharafta leh inay kaarka qaataan dhammaan bulshooyinka ku dhaqan degmada Tog Wajaale iyo danawaaxigeeda iyo dhammaan reer Soomaaliland waxaan leenahay qaata kaararka codbixinta hala qaato waa fursadina soo martay oo qaaliya marka waxaan leeyahay ka faa'iideysi wanaagsan baan leeyahay gobollo badan baa lahaa gabiley 7 kuma noqotay maanta waxaan doonaynaa gobolkii gabiley inuu noqdo 140 ama 150 dadkii aan qaadan 30% baa naga qaatay way 7 baa noo harsanaa imika gurigayga waxa sitay 3 qof maantana waxa qaadanaya 4 marka waxa leenahay hal qaato kaarka hal qaato Muuse Xuseen Xasan 5TV gobolka Gabiley